isku day inaad mar walba wanaag samayso. isku day mar walba inaad wax fiican qabato. mar walba wanaag dushaada ka muuqdo. u dhoola cadde dadka, kelmad wanaagsan dheh. furfurnow, bashaash ahow, qof faraxsan. isku day mar kasta inaad qalbiyada bini'aadanka raad kaga tagto, inaad noloshooda saameyn ku yeelato. waxaad noqonaysaa qof taariikh fiican leh xataa haddaad adduunkan ka tagto. taariikh qurux badan oo ka hadhay ayay ku noqonaysaa. ma fiicna in aad mar walba ku fikirto inaad caan noqoto, inaad lacag fara badan hesho, inaad qani noqoto, inaad taajir noqoto. waxyaabahaasoo dhan waa wax iska fudud yihiin nolosha, balse laakiin waxa lagu kala dheereeyey ee lagu kala badiyey sida bulshada saameyn loogu dhex yeesho, sida uu qof waliba bulshada uu ku dhex nool yahay qalbiyadooda raad uga tago. oo wanaagga waxa la isku dhaafay. taariikhda ka hadhaysa waa in ay noqotaa mid qurux badan, waa in ay dadku dabadaa kaa sheegaan wax fiican, tilmaamo fiican ay ka hadhaan, sifooyin fiican ay ka hadhaan. sharaftaada iyo karaamadaada ilaasho. intaad isleedahay nolosha horumar samee, lacag samee, taajir noqo, meel sare gaadh, waxaasoo dhan waxa way iska imaanayaan, laakiin waa inaad dadka ka hooseeya eegtaa. dadka aan waxba haysan ee darajadaada ka hooseeya waa inaad eegtaa. mar walbana xaaladda aad ku sugan tahay ku xamdi, ilaahay ugu mahad celi. caafimaad baad haysataa, cimri buu ilaahay ku siiyey, waqti baad haysataa, nolol fiican baad haysataa, 360 xubnood baa ku dhan, wax kaa maqani ma jiraan. nolosha aad raadinaysa ee ka maqan oo tanaad haysatoon ku xamdi, ilaahayna ugu mahadnaq. mar walbana isku day qalbiyada bini'aadanka inaad raad kaga tagto si ay kugu noqoto taariikh qurux badan. marka aad tagtana wax fiican dabada la sheego.